madaxweynaha dowladda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafd balaaran oo hogaaminayo ayaa lagu wadaa in toddobaadkan ay boqosho rasmi ah ku taagaan magaalada Dooxa ee dalka Qatar. Saraakiil ku dhow madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegaya in wafdiga madaxweynaha ay ku jiraan ilaa 6 wasiir iyo ganacsato kuwaas oo heshiisyo iskaashi la soo saxiixan doona wasiirada dhigooda ee dalka Qatar. Wararka ayaa sheegaya in boqoshadan ay tahay mid rasmi ah, waana boqoshadii labaad ee madaxweyne Farmaajo ku tagay dalka Qatar kadib markii uu sanadkii hore u booqday. Socdaalka madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa ku beegan maalinta talaadada ah ee soo socota sida ay xaqiijinayaan ilo ku dhow madaxtooyada Soomaaliya. Dowladda Qatar ayaa dhawaan la saxiixatay dowladda Soomaaliya mashaariic horumarineed oo ku baxay ilaa 200 milyan kaas oo kamid ah dhismaha wadada isku xirta Muqdisho iyo Jowhar, Muqdisho iyo Afgooye. Boqoshada madaxweyne Farmaajo ee dalka Qatar ayaa ku soo beegmaya iyadoo si xumaanayo xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta oo horey xiriirka ugu jaray dalka Qatar. Dowladda Soomaaliya ayaa ugu muuqata in siyaasadda arrimaha dibadda ay u janjeerayso dhinaca dalka Qatar, waxaana marka loo eego soo dhawaanshaha madaxtooyada Soomaaliya ee dalka Qatar ay meesha ka saari doonto mowqifka dhexdhexaadnimada ay hore kaga qaadatay dowladda Soomaaliya.